guddiga loo xilsaaray dhismaha golaha deegaanka degmada Baargal ee gobolka Gaardafuu ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay ay ku soo dhameystiri lahaayeen xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada. guddiga ayaa sidaas oo shacbahaysa gacanta ku haya badi 21 xubnood oo loogu talagalay inay ka mid noqdaan xildhibaanada golaha deegaanka, balse hadda ku howlan yihiin sidii loo soo kala saari lahaa cidda u qalanta jagadan iyo sidii xal loogu heli lahaa xubno khilaaf ka jiro. bulshada deegaanka ayaa niyad ku tilmaamay in xildhibaanadii golihii hore badankood ay soo noqonayaan meesha ay ayagu sugayeen wajiyo cusub oo dardar geliya howlaha maamulka degmada iyo adeegyada bulshada, ayagoo ugu baaqay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland inay doorkeeda qaadato si loo soo xulo xildhibaano shaqooyinka dowladaha hoose iyo maamulka si fiican u gudan kara. degmada Baargal ayaa wali waxa ka arimiya maamulkii iyo golihii deegaanka ee uu dhisay madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo markaasi booqasho taariikhi ku yimaaday degmada Baargal iyo dhammaan deegaanada bariga fog ee Puntland. golaha deegaanka ee degmada Baargal ay ka kooban 21 xildhibaan oo ay odayaasha dhaqanku hab qabiil ku soo xulaan, waxaana la rabaa goluhu inuu gaarsiiyo adeegyada asaasiga dadka deegaanka sida fayadhowrka, horumarinta iyo dhisidda kaabayaasha waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada amni iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka. arrimahaasi oo golihii waqtigiisu dhamaaday ka gaabiyay.